kulanti wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan kusoo gudbino wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona qaramada midoobay ergeyga qaarka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo war la yaab leh ka soo saaray waxa uu muuqda dib u dhac ku imaanaya doorashooyinka dalka xilliga loo asteeyo oo markaan wax ka yar 2 maalmood ama maalmooyin kooban ay ka harsan yihiin. haddaba James Swan muxuu ka yiraahdaa intaas war oo markaas dawladdu aysan filin ayuu ka soo saaray waan idin wadaagi doona macluumaad ku saabsan siyaasiga caanka ah ee mucaaradka weyn ee dowladda federaalka ah laguna yaqaan dhaliisha madaxweyne Farmaajo ee dowladda haatan jirta ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay weerar afkaan ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaguna sheegay in damaca shisheeye iyo horumarka degdegga berbera uu halheeskii Farmaajo ahaa taas oo haatan u muuqdo mid uu taageerayo sida uu sheegayo Cabdiraxmaan Shakuur. haddaba waxaan soo gudbin doonaa isbarbardhig uu ku sameeyay qaadka Itoobiya ee markaas loo dhoofiyo iyo kalluunka Soomaaliya halkaas la geeyo iyo qaadka Itoobiya oo Soomaaliya loo soo dhoofinayo ayuu dhankeeda ka hadlay. haddaba macluumaad ku saabsan ayaa sidoo kale daawan doontaan bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu markaan soo saaray amar cusub oo ku saabsan lacagtii $50 ee kol hore la diiday hadduu miyay sii adkeeyeen mise waa la fasaxay. macluumaad ku saabsan ayaa idin daawan doontaan warar kaleemaha caalamka ee diblomaasiyadan waxa ugu waaweyn Itoobiya khilaafka dhanka biyo-xireenka oo markaan u muuqanaysa waa Masar ayaa markaan waxa ay wajahaysaa xulufaysi cusub sabab la xiriira khilaafka markaas biyo-xireenka kala dhexeeya Itoobiya. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warar kaleemaha caalamka ee diblomaasiyada ku saabsan fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu dhiirigelin subscribe inaan noo saarto gobolkan furitaan una sii sharaganaysan saaxiibadii meel kastoo joogaan idinkoo markaas kuma taga laakiin noo reebaya aad baad u mahadsantihiin aanu ku bilaawno. ergeyga gaarka ah qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in waqtigeeda oo lagu soo gabagabeeyay hanaanka doorashada Soomaaliya ay muhiim u tahay dalka xilli ay u muuqato inay dib u dhacayso waqtigeeda. doorashada ayaa heshiiskii la gaaray 27 May waxaa lagu go'aamiyay inay ku dhacdo 60 maalmood gudahood waxaana ayada oo hadda ay baxday bil ka mid ah muuqata inaysan taasi suuragal ahayn in hanaanka doorashada waqtigeeda lagu soo dhameystiro iyo si ku dhisan heshiis haysta dhammaanba taageerada shacabka Soomaaliyeed waa uu muhiim xaqiiqdii wax ka qabashada ahamiyadda dalku u baahan yahay dadka lagu faa'iideysanayo ayuu yiri James Swan oo sheegay wakaaladda wararka Anadolu isagoo ku sugan magaalada Antalya oo kaga qayb galay meesha diblomaasiyadda ee Antalya Diplomacy Forum. tani waa daqiiqad muhiim u ah Soomaaliya ayuu yiri madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa ammaanay dadaalada la xiriira doorashada ee uu wado Masar Maxamed Xuseen Rooble oo bishii Abriil si rasmi ah ula wareegay maamulka doorashada iyo amnigeeda. ayaan ugu qanacsanahay in 6 toddobaad ee tagay uu injineer Maxamed Xuseen Rooble hogaamiyay wadahadalada dhab ah oo markaas la yeeshay madaxda maamul goboleed oo heshiis doorasho isku raaceen 27 May kaas oo degdeg ah loona hirgelinayo waxaana si firfircoon markaas u taageeraya fulintiisa ayuu yiri James Swan wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Swan ayaa sheegay in saaxiibo badan oo caalami ah ay si aad ah ay u daneynayaan arrimaha Soomaaliya isla markaana Turkiga ay ka mid yihiin kuwa ugu muuqda. Turkiga waxay ku lug leedahay taageerada qaybta amniga waxay ku lug leeyihiin dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada. Turkiga sidoo kale waxay kaalin ka qaadanaysaa xiriirka dhinacyada aan dawliga ahayn ayuu yiri James Swan. waxaa jira caqabado amni oo weli taagan gaar ahaan cawaaqibka joogtada Al-Shabaab ee dalka waxaa sii dheer baahiyaha bini'aadanimo ee dalka ka jira. Swan ayaa sheegay in booqashooyinka ay dhawaan xubno ka tirsan beesha caalamka ay ku tageen maamul goboleedyada ay qayb ka tahay isku dayga lagu xoojinayo dardargelinta lagu qabanayo doorashada si aan looga gaabin. qaybihii hore ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe noo saar gambalaalkana furo nagu dhiirigeli inaad markaasi subscribe saarto asxaabtaan u sii sharagnayso aad baad u mahadsantihiin waan kaga mahadcelinayaa daawashadiina. markaana siyaasiga caanka ah ee mucaaradka ugu weyn ee dowladdan haatan jirta waqtigeedu dhamaaday hogaankeedana hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahna madaxweyne xil u tartamaya ahna musharax madaxweyne kana mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka waa Cabdiraxmaan Shakuur Rasmi ayaa ka hadlay dekada berbera oo dib habeen ballaaran lagu sameeyay isagoona ku naqdiyay Farmaajo inuu ka soo horjeedo
inuu kasoo horjeesto horumarka Somaliland. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in horumarka laga sameeyay dekedda Berbera uu kal horeba isku dayay inuu hor istaago madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxa ay ka hor yimaadeen ballaarinta dekedda Berbera iyagoona halheyskoodu ahaa waa damac shisheeye ayuu ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. sidoo kale waxa uu dowladda waqtigeedu dhamaaday markaas uu hoggaan ku hayo Farmaajo ku dhaleelay in qaadka laga soo dhoofiyo Itoobiya ku bedelato kalluun xilli ay dowladda Itoobiyana ku hoolan tahay ka faa'iideysiga kheyraadkeena dalka. mowqifkeenu maalinka wuxuu ahaa horumarinta kaabaha dhaqaale ee Soomaaliya leedahay in dowladda Soomaaliyeed dib ku heen. wasiiradda Itoobiya ayaa markaasi daafurkoodii ballaarinta dekedda Berbera u jooga Farmaajo iyo xukuumaddiisa waxa ay la golaha yimaadeen qaad ayaana kalluun ku bedelinaynaa ayuu ugu dambeyntii ku yiri qoraalkiisa. hadalkan ayaa imaanaya xilli xariga laga jaray dib u ballaarinta lagu sameeyay dekedda Berbera ee Somaliland oo ay gacanta ku hayso shirkadda DP World oo heshiiskeeda ka soo horjeestay dowladda federaalka ee Soomaaliya. qaybihii dhexe ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saaro gambaraalkana furo una sheer gareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga laagana inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. inta aanan aadan waramaha ku saabsan arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda aan ka hormarino. bangiga dhexe ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray amar uu ku socodsiinayo lacagta $50 ah oo kal hore ay joojiyeen ganacsato ka tirsan kuwa ka howlgala Soomaaliya. gudoomiyaha bangiga dhexe oo kulamo la qaatay gudoomiyaasha bangiyada xawaaladaha iyo shirkadaha isgaarsiinta ee lacagaha danabeysan ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin lacag been abuur ah oo soo gashay dalka kadib baaritaan dheer oo uu sameeyay bangiga dhexe. gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in baaritaanka ay ku ogaadeen in propaganda ay tahay wararka sheegaya in dalka la soo geliyay lacag $50 oo been abuur ah isla markaana ay tahay in ganacsada ay qaadato lacagtaas aysan muujin shaki. laga bilaabo maanta in bangiga dhexe uu amray qaadashada in bixinta $50 cidii uu hoggaansan weysana go'aanka uu la xisaabtami doono bangiga dhexe. waxaa madaxda ganacsada isla qaadanay inay u hoggaansamaan awaamirta bangiga dhexe ayuu yiri gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi. sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shirkadaha iska dhigtira amarka bangiga dhexe maadaama aysan waxba ka jirin cabsida shacabka lagu abuuray ee la xiriirta in lacag $50 uu been abuur yahay ayna ka jirto dalka Soomaaliya isla markaana ay dhex dabaalanayso. amarka kasoo baxay bangiga dhexe ayaa imaanaya xilli ay muddooyinkii dambe taagneed hadal heynta in lacago been abuur ah oo $50 ay ka jirto dalka, taas oo keentay in gebi ahaanba lacagtaas ay iska diidaan shirkadaha iyo dadweynaha wax kala iibsada. markana arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda haddii aan eegno wararka waaweyn. dowladda Masar ayaa waxaa isku dayeysaa inay xoojiso awoodeeda diblomaasiyadeed iyo midda militariba ay ku leedahay gudaha Afrika xilli ay sar u sii kacayso muranka kala dhexeeya waddanka Itoobiya ee salka ku haya dhismaha biyo-xireenka ballaaran ee dalkaas ka dhisayo webiga Niil. ayaa waxaa sidaasi qoray mid ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda. ururka juqraafiyaanada Masar ee la sameeyay 1935 waxa ay keedeen dukumeentiyo muhiim u ah oo ka turjumaya danta fog ay Masar ka leedahay dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika. waxaa dukumeentiyadaasi ka mid ah qariirad taariikh ah oo muujinaysa in xuduudaha koonfureed ee Masar ay dhaca harada Victoria ee bariga Afrika. ku dhawaad 70 sanadood kadib Masar waxa ay dib u saxday qaladaadkeedii boqortooyada waana markii ay hoggaan ku qabatay dadaalkoodii looga soo horjeeday gumeystaha ee Afrika iyo goobaha ka baxsan. hase yeeshee markii ay muuqatay dagaalkii Carab iyo Israa'iil waxaa hoos u dhacay xiriirkii la dhexeeyay dalalka Afrika ka hooseeya Saxaraha Afrika. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa wararkii ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka aad kala socoteen. janalkeena ka ah wararkan kusoo gudbinay wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka oo aadna ku daawateen qodobo xasaasi ah oo ugu waaweyn siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo qaramada midoobay arrimaha doorashooyinka markaas dib u dhaca u muuqda inuu ka imaanayo rajo xumo ka muujiyay. nagu dhiirigeliya subscribe-ka oo gambaraalkana fursa una sii sheer gareeya saaxiibadiin kale meel kasta joogaan. aad baad u mahadsantihiin. nabadgelyo.